waa hoteelka ugu cabsida iyo argagaxa badan waxaana lagu arkay wajahadiisa hore hoteelkan midab cas oo loo malaynayo inuu yahay dhiig oo dadka qaarna ku sheegeen inuu yahay dhiigii dadkii ku soo degay hoteelkan booqashadana ku iman jiray lama garanayo ilaa hadda xaqiiqada dhabta ah ee ka dhex jirta hoteelkan sidoo kale waxaa la sheegaa inay ku dhex nool yihiin rooxaan iyo waxyaabo aan la geeranayn buurta uu ka dhisan yahay waa halkee wadankee ayuuna ku yaalaa maxaa ka mid ah qisooyinka cajiibka iyo layaabka badan ee ka dhex dhacay sidoo kale idima ku dhex nooshahay waqti xaadirkan run ahaantii markaad aragto muuqaalka sare ee hoteelkan waxaa kula soo darsaysa warwar iyo naxdin aad u fara badan Amber Court waa hoteel qadiimiya sidoo kalena daxalaystay maxaa sababay in hoteelkan laga sheego waxyaabo badan oo cabsiya bal ka waran haddii lagu odhan lahaa intaad soo noolayd oo dhan noloshaada 3 habeen oo ka mid ah oo keliyaata ayaad joogaysaa hoteelkan ambaad seexan lahayd ma ogolaan lahayd daawade haddaba maxay tahay waxyaabahan cabsida badan ee laga sheegayo hoteelkan ku yaala Malaysia soo dhow mar kale daawade waa anigoo ah Nadra Saciid laga yaabaa inaanad mar kale arag haddaba isoo follow garay imaka iguma khasaari doontide haddii aad hore noola joogtayna sharaf ayaad leedahay xaqiisa si muuqaalkan adigoo like saaraya mahadsanid jawiga iyo aamusnaanta hoteelkani waa mid naxdin badan Amber Court Hotel waxaa la sameeyay 1995 waa 2 fooq oo iska soo horjeeda midkiiba wuxuu ka kooban yahay 23 dabaq wuxuu ku yaalaa buurta Highland Highland ee Malaysia 3 dabaq ee ugu hooseeya waa baarkinka gawaadhida la dhigto balse markaad aragto waa mid argagax leh waxaad u malaynaysaa inay tahay meel laga guuray oon sanado lagu noolayn waxaad is odhanaysaa waa meel rooxaamaha iyo jimanka oo keliya hoy u noqotay filimkan hortiina ka muuqda waxa lagu metelay hoteelkan qofkii u baahan inuu soo daawado magaciisu waa Haunted Hotel sanadkii 2000 hoteelku wuxuu la kulmay hoos u dhac maaliyadeed khasaaro aad u fara badan ayaa la soo daristay markii qaar ka mid ah hoteelkan dadkii deganaa ay diideen inay bixiyaan kharashka adeega iyo dayactirka iyadoo welibana ay weheliso ceeriyaamo iyo jawiga oo aad u xun hase yeeshee 2 sano kadib dhismihii wuxuu bilaabay inuu qodmo oo uu noqdo mid uskag badan dhacdooyinka kale ee cabsida badan kana dhacay gudaha hoteelkan iyo agagaarkiisa ayaa ka mid ah dilal aad u fool xun oo la garanayn cidii geysatay intaasoo keliyaata kuma koobna 2003 waxaa la helay qaybo ka mid ah jirkeeda haweeney shil gaari ku dhimatay iyadoo ku soo socota Amber Court Hotel sidoo kale waxaa la sheegaa dalxiisayaasha markay rabaan inay yimaadaan badankoodu waxay ku dhintaan shil iyagoon soo gaadhin hoteelka haddii aad ku dhiirato inaad ku dhaxdo hal habeen hoteelkan oo aad seexato waxaa la sheegay oo qasab ah inaad la kulmi doontid humaaga rooxaamo iyo shanqadh dhawaaq ah oo cabsi badan martida iyo shaqaaluhu waxay ka warbixiyeen inay la kulmeen dhacdooyin yaab leh sida dhawaaqyo iyo codad aan la garanayn iyo muuqaalo naxdin leh gacmo aad moodaysid inay ku taabanayaan haddana aan la arkayn dhacdooyinkan iyo sheekooyinkan laga sheegayo hoteelkan ayaa keentay inuu sumcadiisu ay noqoto mid ka mid ah meelaha ugu xun ee Malaysia haddaba daawade haddii aad garanaysid qof jooga Malaysia ku xujee videogan kuna soo meeshan gare adigoo ku odhanaya hoteelkaas soo booqo oo tag sidoo kale daawade haddii adiga bilaash lagugu geyn lahaa dhowr cisho ma ogolaan lahayd inaad tagto oo ma ka wardooni lahayd fikirkaaga nagula wadaag dhanka commentiga waa anigoo ah Nadra Saciid like saar muuqaalkan 300 oo kun oo followers waxa inooga dhiman wax yar nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xidhan waa inooyo mar kale iyo videoga kan ku xiga